بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta sheegaya dhaqankayaga tan waxa weeyaan waa cadriyad tani kale waxa la yiraahdaa waa cambaabur waa kimis kani waa caanaha garoorka ahaayeen dhaqan soo jireen oo lahayn Ilaahay na siiyay tani waa faracadi waa cuntada dhaqanka u lahayn Ilaahay baa na siiyay tani waxa weeyaan waa heedi oo la shulqay la feedaday oo hilib lagu kariyay oo maxay hayday subag lagu daray tani waxa weeyaan waa malo wixii oo dhaqan baan u leenahay waan samaysanaa waan cunaa tani waa faracadi oo waan cunaa kani waa caanihi geela oo aagaasan ku shubnay annaka ku shubnay intaan geeli ka saamaalaan ku shubnay kani waa barjinkii waa lagu fadhiistaa kani waxa weeyaan waa deelka maxay iyalka caanaha lagu siiyo kani waxa weeyaan waa deelka shaaha lagu cabbo anaku ku baada ma soo ibsanay kana shaaha ku cabnaa geebka shaaha kani waxa la yiraahdaa waa galay caanaha markay ambaday yihiin amba garoor yihiin baa lagu cabbaa kani waxa weeyaan waa barki waa lagu seexdaa kani waa gorof oo geela lagu maalaa caana kale lagu malisa geela un baa lagu lisaa kan waxa la yiraahdaa gorof ayaa la yiraahdaa kani waa gorof isaguna kani waa gorof isagana caanaha lada lagu lisaa geela lagu maliso caanaha lada lagu lisaa kani waa gorof waa dhaqan baan u leenahay waan karsanaa markaan caanayno iyo subag ku darnaa isbageedalay baan ku daraa waa dhaqankayaga ina waxa weeyaan waa hilib kani waa hilib waxa la yiraahdaa kani waxa la yiraahdaa waa hilibka waxaan u sameeynaa 3 nuucadood baan u sameeynaa kani waxa la yiraahdaa waa luqmad oo la googooyo kani waxa la yiraahdaa waa luqmad oo la googooyo waa la shiilaa kani waxa la yiraahdaa oodka waa la kariyaa lama adkeeyo subag baa lagu shiilaa oo waa oodka kani waxa weeyaan waa maxay hayday waa macaan baa la yiraahdaa oo alaab isku jirjirto haday maxay hayday tahay sabiib haday tahay adu wax ka soo macaan halkan ku xidhnay sida u dhayiin waa macaan iyo hilib laba nooc kala ah maxay hayday oodka maxay hayday hilib luqmada dhaqankeedu 3 nooc hilibka u qaybtamana waa kaas hooyooyinka sharafta la soo sameeyay waa reer marmarsan ka soconaa waa kaas alxamdulillah ilaahay baa mahadle